السلام عليكم kusoo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad iyo mar shanaad ba podcast-ka Ideal Ideas oo aanu kaga hadalno waxyaabooyin xaqiiqooyin waxyaabo ka dhacaya magaalada waxyaabo u baahan la bedelo waxyaabo ma aragtay la isku soo kordhinayo this guy is not the odd garansan horta aniga waa Ahmed Faisal Fasto for short Khalid marka de shout out to my guys out shout out to us. So maanta waxaan haynaa sida caadada ahayd bade usually wadna la qabsateen kolay waxaan haynaa maanta topic aad xasaasi ah oo aduu de magaalada hore nooga dhici jiray oo u baahan in ma aragtay la isla eegade sida caadiga ah sida caadiga ah so maanta waan isleeganaa bal inshallah topicyada waxay noqdaan idinkuna kolay de raybaad ka qabtaan ama feedback kana had sameysaan maalin hore aan ku daray maalin hore la yiri dad doonaysan noo soo sheegtaan wax DMs okay if you want to tell us something dad wax noo soo sheegtaan Instagram ka DM kiisa noo soo sheega okay Instagram kuna waxa weeyaan su'aalaba ideal/ideas/2021 okay YouTube kuna waxa weeyaan ideal_ideas comment like subscribe share inta waa ilowina inta bas raaya waa sharci comment ha bixin adoon inta soo marin what's up والله how was your Eid wallahi كشك عيديني yeah was good yeah Eid wallahi waa nice alla waxaanu ilownin inaanu ku raano daawadaasha kulay Eid wanaagsan. maanta la soo Iyaga dhigay soo dhafartaan. ciid maatina after week day markaan soo dhigna after weeks markaan iska waska ciideeda anaga ciid bay noo tahay maanta waa maalintii saddexaad ciid mubaarak muslimiintu meel alla meel aad joogtaan dacallada dunida iyo daafeeda ciid mubaarak baan leenahay sanadkiisa ilaahay nagu gaarsiiyo caafimaad qab inaga reeraheena reeraheena kuwa xanuunsanaya kuwa caafimaadka qaba dhibaataysan waxa weeye ilaahay dhibaatada ka qaado amiin waxa weeye waka alxamdulillah Faisal maxaa la yiraahdaa yo ciidaha garansa horta waxa la waa maalintii farxadda muslimiinta so you deserve to be happy okay with your family gaaga reerkaaga inaad qof walba faraxsanaado waa qasab marka niyo ciid kasta uu soo bedelaysa generation ka damba ciid kasta baa niyo si gaara ay u ciidaan marka ciid maanta salaadii ciida waxaan fiirsaday dadku waxay focus ku hayaan dharkooda khamiiska inay soo tushaan inay de soo xarkooda inkastoo la yiri soo xarkooda waa qasab waa diintu soo qurxisa Allahu jamiil yuhibbu al-jamal galansa dharka u qurux badan cadarka u wanaagsan inta haboona de soo marsay laakiin kaba badida إنه واحد كسب بس سات وحويان مساكنتي وقصبت سكب بحس إن الصلاة كذا عيد الفطر يا لكن لا وقصب so I'll see less people الحين يا مقيس يعني سكو تلاقي هاتو دي نقطة هيلبكي لحظة I think problem كواد آديات بيرت والله problem كاجا اسكالده عندنا ما قصب كرس ورنتها لكن دي والله كوشك مسلم والله كان سوي شيء so طبعا قلدنا لكيس وحق قلدات تاسن وحويان دي عارف ما أورن كريه لكن مساكين بدون وجوه بس واحد حضران every day صلاة ما واحد كان يدل عن حبايب true لكن at least واحد سين كرسة عشان بقول كوش at least واحد سين كرسة so ما أرجولي أنا والله أبغى أبصح سوقات أحدو واحد بدون سوقات قف كستم حسير something ما شاء الله waxaan kulay waxaan ka imaada aniga fadhamar aatiga ila ay jirto sikra noqdo waayo wixii lacagta ku jirta ma baahnide kibir baa ku haynaysa ya so cilada koowaad inta arko ayaan kulay wada arto mid kale jirta waxa weeye masaakiintu imika macalsaada way qaataa saadha fans wayaan horumar la gaaray martuu kibriyo horumar la gaaray maysto video kan sameynay miskiinka يا تسعدك يك ATM كا أدينا قرانسا back in the day marka iyo waxaan kala arkay ciida qofku wuxuu sameeyaa something weird aanu ama kala sameeyeen oo maxayna horta waxaan arkay ciidaha qaabka loo dabaaldegayo is different yes waxay sameeyeen habeenkii party baa dhacayaba habliyeen ama isku imanaya waxaad arkaysaa dad magaalada isla socda waxaad arkaysaa like dad magaalada iskala baxaya
ayaamaha kale sa sameyn ha wahayda ciidda waxaa sameynaysaa midda kale dee anigu ciid waa ajar de waa tiinjo ajar ha anigu lama yaabin waxaas waa caadi buusuka waxaaga mala laakiin ayaanta ciidda ayaa lagu beegaya inoo ha that's kaas marka wax kale ma haysid waa suuqa maalaha sheegtid in bla internet ismayn dadku sama kaas wada ma haysan ciid waxa laga dhigay dambi badan de dambiga badanaya dadkiiba waayo ayaamaha hadii khaf fadliga ilaahay inuu sii dambi ku bata wax la yaab especially Ramadaantii xataa yaa inta dabanka dambeeyo Allah waruna waxaad arkaysaa dad soo soomeeya 30 cisho masaajidkan ka bixin taraawix ma dhaafayso maalinta ciid ay gaadho wixii oo dhan wala daadinaya in bala soo khalas isbedelinki ya qaaliga wana saako xaga yu qaali soo dayacir ku shaqaystay hadda 30 cisho waxaad shaqaysatay waxaad ku baabiinaysaa one day maalin quriya aad ku sheegaysaa 30 days ki waxaad soo shaqaystay waxa wanaagsan waana arin aad u xun moogtahay adagtan hadduu qofku in yar uu fikirayo ka nixlaa waayo waxa ka dambeeya ka xun waxaad noqonaysaa gabadhii reer bani Israa'iil subaxdii waxa lagu leeyahay waxay samaysaa xarig bay soo hodaa habeenkiina marka si saxan si furfurta every day same scenario ku soo celcelisaa taas ma noqonaysaa exactly so khayr baa shaqaysanaysay haddana at the end of the month waad furfuraysaa waad baabiinaysaa wixii baad baabiinaysaa within one night make it be simple to waxa serious ku fudud sax ayaamaha kale samaysid iska samee you don't have to include it naftu ma adagtiin lahaye laakiin shaydankana marka ka baxsato ogoyna ka baxsato horta taas ugu muhiimsan ba waxaad tiraahdaa okay maanta way ka siibad at least ogobal inay dee kaayra baxbaxsato walaal hataa dad xajin kari weydade inkastoo inaad xajiso waxaaba la yidhi dee ilaahay wuxuu yidhi yani raxmadda ilaahay way furantay mar soo noqdaa marka bini aadamku kulli bini aadam khata moogti ciidahana ka daaya marka khayrul khataa'ina tawaabuun marka dambi aad sidaad u gasho wanaag ka dambeysay way masaxaysaa xumaanta at least marka hore haddaad gasho oo dhacdaba wanaag ka dambeysay iska ilaali laakiin saday dhacdaba haday dhacdo laakiin haddaad tiraahdo dambi baan gelayaa wanaag baan ka dambaysiinaya dambi baan gelayaa wanaag baan ka dambaysiinaya waxa weeye waxaad u dhaqmaysaa sidii qof ma garanaysaa minus plus ilaahayna ku arkay account-kaaga waa zero laakiin dambiga wixii aad gasho yani ka xumow dib ha ugu noqon yani marka lagu leeyahay wanaag ka dambeysay macnaheedu waa taa ka xumow dib ha u sameyn talaba waxaan ku darayaa salaada dabada wuxuu u tukanaa salaada darteed waan una sheegaya salaada waxa la tukanaa soo loo galo hadhow leeyahay ciid mubaarak soo loo galo group soo dhigo Instagram-ka yani meel ciid xagasan isku markaas hada waqti shanta salaadood caadiga ayaa ka kharibo salaad kasta soo dad taa tukuntid tan ka waxa loo tukay for intention la fashion la iska dhigan la isku yimaado salaadii aad u tagin sida ciidda guriga waad ku tukan karaysaa taama waqti horta ya shamaca ka khayr badan laakiin still waa tukan karaysaa ya hadda turfu ku soo baxdo soo shanta salaadaha ciidda aad bay badan yihiin wadaartay garoomada lagu tuudo saasha khatar lama buuxinayo ya waxa ka muhiimsan badeen ma nabiga kaleey salaatu salaam uu xiri jiray isagu masaajidkiisa soo dadka wuxuu garoon bu tagi jiray ku garso ku tushin kara because wuxuu doonay dad kuma halay salaada ciida salaadaha kale ku leeyahay yani kan tan garoon wuxuu ka wadaa yani ciida waa waxa weeye waa dacalada dhan baa la iska soo baxay magaalada waa wax caadi laakiin salaadaha caadiga masaajidka xitaa saf labada saf ee ugu horeeya lama dhaafayo wayna aad bay uga dhacdaa especially salaada ugu horeysa maye taa waxaan leenahay ku talagala deeda salaadon akala khayr badnaadaan be so taasi waa taas ciida marka insha Allah si wanaagsan dibada okay asa xisma macaanina so waxaan ka sii gudbo nin waxa jirtay maanta wax la yaab arkay ay horna ka sheekeynay gransa waxa weeyaan suuqa samari gransa kadib waxa arkay maalmahan ka sheekeynay kidambaki aftobintii inanta marka suuqa samari horta xalqada ma kaalin ay horan kaalin maanta arkay maanta khamiisa so next week wax noqon saanano 4 iyo sheego kala dhacday sheego wala anta waana ciidan saddexaad ciida weyn kale inanta markaa eeg meesiteen oo laga riday askar bakreed tistan okay so gaari wetem soo laga may ta wax information ka wax badan oo wax arkaysiyo la qabtay ragi inanta inta wala xayaa ka xaafadiyo isku soo ka geeri ma waxaan wax kala waxaan ku wax imika uu soo bateen like kufsiga I guess aad you know why anu waxaan u maleynayaa orda first mistake wax walba marka doos inaad xalisade
waxa la sameeyaa root-ka la soo raaca halka waxaan ka bilaabeen xididka halka waxaan ka soo maxaa keenay step by step markaad raacdo waxaad ogaanaysaa imko kale inankii maxaa isu keenay inantu halkii joogtay ninkan raggan badhaba halkii joogeen iyagu inantu iyadoo gurigooda ku dhex jirta muqulata inay ugu galeen soo qaadanay so maxaa lagaga cad inay soo baxday inay soo baxday maxaa kaaga cad ha baxda ma xuma xilli dambeyn ahayd oo dad socon xilli aan ku habboonayn inay socoto waxay ahayd shayga waa madow so inantu hadday soconayso hablaha dee horta qaar baa ku odhanaya muxuu ahaa danaan leenay waxbaan qabananaa runta ma kuu sheegnaa ha iska joog dee wixii wixii maqrib ka dambeeya aday ku wanaagsantiba amba qof family ah kula socda aday ku wanaagsantiba waan ognahay inaad dana yeelan kartaa laakiinse for your safety adiga wanaagaaga dee macnaha haddaad doonaysa inaad safe ahaato iska joog laakiinse waad soconaysaa magaalada wareegaysaayo hadhowna waxaad you complain de inaan saaxiib noo dhakhtara waayo caseeskani waxay ku dambeeyaan ugu dambeynta inaan aanu saaxiib noo dhakhtara wuxuu iga sheekeeyey case noocan oo kaloo dhacay markaa gaari weliba imika waxaa jira arrintanna iska ilaaliya gawaadhi waxaa jira rag saaran yihiin noohooyin oo xaafadaha dhex mara oo daydayda inan yaroo keligeed socota gabadh aan lala socon inan keligeeda waxa weye inanba inantay kasii yar tahayna waxa weye way iga sii nugushayin adigu inan yaroo waxay ahayd 12 jir bay ahayd qiyaastii adigu haddaanan khaldanayn 15 ayuu guur way ahayd 13 bay ahayd 15 bay ahayd markaa inantii iyadoo xaafadaha dhex maraysa ayaa meel wada agteeda oo gawaadhidu socdaan oo la arkayo ayaa inantii ay gaadhiga afduubeen bay gaadhiga ku rideen inantii magaaladay kala baxeen inantii dee waxa weeye si walbo wax walbo xunoo bilaadan lagu samayn karo intay ku sameeyeen bay inantii bartii ku sameeyeen imsada ahayd waqtiga qaata waxay ahayd wallahi waqti cayiman inuu habeen bay ahayd taas waa hubaal anu hablaha waxaan odhan lahaa dan kasta yeeshooniyo habeen yaan in la gaadhin habeen haddii la gaadho make sure inaad gaadho haysato ama aanad dee meelo lugayn dee halisa deh ku ilaalinaya gaari ama kale qof ama waalid ama walaalka ama dee qof dee family ka mid ah hadduu ila socdo no problem hablaha dibirka wax loo sheekay kala yasiiro atukanka nambarkiina at least man qof ku soo aad iyo waxa kale oo arkay ma aragtay nimka social media soo baxay Soomaa inantii ninaan garanay ba social media ka baransa wax catfish la dhawa jira adduunka qofkan isagii ma hawa kaba soo qaad baynu yahayba qofkan ma garan soo cid yahay maxay iskala balamasaa aduu isku imanayaan qofkan wax walba ka suurto bada hadho isu ka bedelaya of course so marka ku dhacday Axmedow in sawirkaaga inta profile fake inta la sameeyay la duldhigay oo la sameeyay magacayga xitaa la sameystay anigu marba igu dhacday rumaantii inaanu saaxiibnahay sheego igu yiri qofkaasi maadiga waan u qaadan waayay ani markaa waxa jira catfishka macnaheesu buu inta yani qof baa wuxuu iska dhigayaa qof aanu ahayn nin baa inan yar iska dhigaya qof inan buu kala saaxiibaya meesha inantii wuxuu la balamaya inantu inan bay moodaysaa waxa ka soo horbaxaya nin moogtahay marka waa arin aad dangerous waa moogtahay qof aanad garanin iskaga tegin marka iska baandhe is ilaaliya waxa weeye dumarku hablihii waliba imika lama kala eegayo inan yar islaam weyn anagu kuma raacsanin raggan de hadalka soo dhiga anagu raggan kuma raacsanin waxaan sameeyaa wax xun de laakiin waxaan leenahay hal ka bilaamayo ayaan doonayaa in de la bedelo haddaad lixda wixii ka hore gurigaaga iskaga jirto nina kuguma soo galay kuma intii hore inantii dee la afduubtay meesha laga dhaxay guriga taasi dee waa special case bad no kaas keen hore kaas I think hade kaasoo kale waa may waxyaabo gaar weyn ninkuna midda kale dee may ahayn shakis kufside laatan ciyaal u dhex fadhiyo sooran aan arkay soo sanu sheegay kamarada ciyaal harra ka fadhiyaan dadka ciyaalka urursado labaatan beed tirada ma garanay laakiin waxa u badnaay okay iska daawaada ganacsatada ciyaalka iyo organiska ka ganacsatada garansa mid waa jirta haddaad u carlinka leedahay father ka shakee dad waalid tahay
inankaaga laabtuuta maxaad samee what's the first thing you do su-aashaa maalin horaan axmed weydiiyey ma xasuustaa maalintii masaajidka markaynu kasoo baxnay inan yaroo dee 2 inamoodoo yarar bay ahaayeen xoogu yaryar wayna hor socdeen moogtii markaa isku wadaanu soconaa halkay ka laabtaanba waanu ka laabananaa moogtii waayo jihadaan u soconaa dhankaas ay u socdaan saasaanu isku eegnay kolba saanay noo soo eegayaan moogtii way soconayaan haddana sanay noo soo eegayaan markaa su-aal baa ku weydiiyey waxay ahayd niyow waalidku maxay carruurta u soo deynayaan yacni kalsoonida intan laga ilmahan yare bal haddaynu imika dad xun ahaan layn ka horano dee ma garanaysaa carruurta hadda wax walbaa ku dhici karlaa habeenkiiba wixii dadka maad aragtay u sheeg iminkoo kale iminka nin haddaad tahay waa caadide laakiinse hablaha iyo caruurta iyo waxaasoo dhan inay fiidka iska hoydaan baa wanaagsan dee rum ahaantiina carruur yar bay hayna ragguna isku soo hadhaan ragga waxba isma weydiinayaan waxba anagu isma weydiinayaan ciyaalka hablaha dumarka wuxuba waa iska hoyda fiidka idinkay ni wanaagsantay ma aha in laleeyay waxbaan inka ceshanna waxligay ni wanaagsan يعني أدونكو اسبدلة يعني معلم بمعلم تكسي دنبيسا وحصوب حيا حمان عصب نقل عصب وهالي عصب موقتاي dadka marka halista ugu jiraan waa dumarkii ciyaalka dadka ugu horeeyay markay waa la dhacdo dadka saamoobay ay saameynaysaa waadinka wax way target waxa way waa caruurta iyo dumarka marka wax badan baa isbedelayde marka intayna idinkan saameyn raggana dee kuwan bilaa iimaanka sheekadan wada waa dee dad caadiya maa kale anigu waxaan odhan lahaa ma garanaysaa nin walbo inan kufsada ha loo dilo may dil ma noqonaysa anigu waan dili lahaa because inantaa waxaad ku ciyaartay mustaqbalkeedii oo dhan horta in la xidho weeyaan berigii hore dhaqan bay lahaynba soomaalida oo ugu qaadan jiray qof uu ku qaadan jiray laakiin arrintaasi xitaa way khaldantay inan ninkii faraxumeeyey ee dhibaateeyey democracy this man is scarred her for life moogtahay yani nabarku u geystay mid ka ba'aya maaha iyadoo ilaahay xitaa haddii ilaahay ku dayso hal xusuus baa ka xigtay iyadoo magaranaysaa meel xanuunto marka waxa weeye ku qaadashadaasi anigu waxa weeye dee khalad baan u arkaya dee way ahayd baqalad waana la joojiyey waa la joojiyey Soomaaliya qofka midda kale waxaa la odhan jiray ku qaado xabaar iyo duco waxa weeye albaab walba laga soo xiri jiray optionka qofka moogtay marka anigu waxaan odhan lahaa waayo falkani qof dhan ayuu moralkiisa qalbigiisa ku dilaya yani waa qofka marka caadi loo toogtay marka qalbiga laga toogto way kala xun yihiin markan waa qofku wada dhamaystay marka wada dhamaysoba nolosha uuba ma garanaysaa warra waxay xanuun dambe ma dareemay ilaahay bi xisaabtiisa laakiin markan kale waa qof la nool dhibaatadan oo xanuunka la nool oo aroor uu soo ka xasuusanaya markuu arko waxa weeye waa PTSD caadiyade waa xaalad aad u adag wallahi in anigu haddii la dabar jari karo anigu hal shay oo la dabar jari karo maxaa dabar jar leed haddii lagu odhan lahaa aniga wanaga maqribka wixii ka dambeeya si at least uu yaraado maad aragtay janiska dee qofkan lagu heli karaa maqribka wixii ka dambeeya haddaan qof kula socno ama safety try your best isku day intaad ka raso inaanad maqrib wixii ka dambeeyso aanad dee cidaanad garanayna aanad qofay dhibaatadani ku dhacday unbaana dareemi karo arki kara moogtay waxaa laga yaabaa qofkana daawanaya inuu yidhaahdo waxaan aniga igumay dhicinoo uu iska soo qaaday yani waxaan saameynayn waxaa dhici karta inaad la kulanto xaaladan oo kale ood ka qoomamaysa hadhow markaa aada u feejignaada is ilaaliya waxa weye dumarkuna waa cawro inay xilligaa socdaan ma wanaagsana guryihiina ayaad qurux badantihiin markaa faysal arrintaa maxaad arrintaasni waa wallahi waa wax naxdina wallahi laakiin su'aalkan waxaan ku hayaa horta kaba qaybsan hadduu kuwii caruur ku dhasho inan iyo inan kaba value leh qiimo qiimo leh haddii su-aashaanu dhegeystayaashu si yara maxaad faamiliyada inta badan markuu inan u dhasho inanka waxay u arkaan as an asset as a value buu leeyahay aan soo koobna wax tiraabaa innaga soomaalida Soomaaliya Soomaali ahaan dhaqanka Soomaalida weeyaan I think xitaa dibadda way jirtaa soo koob laakiin Soomaali ahaan mar haddii dhegeystayaasheedu Soomaali yihiin waxa weeye inanka waxaa loo arkaa markuu dhasho inuu ka qiimo badan yahay inanta
oo waxay yidhahdaan hadhow inanku waxa weeye u shaqeynayaa waxa weeye hooyadii buu kan u qabanayaa aabuhu kan u qabanayaa reerku caawinayaa inanta uma arkaan laakiin inay tahay as an asset value qiimo yacni caawimada yacni hawshay ka sugayaan inanka inay inantu qabato kama filanayaan waayo waxay odhanayaan inantu yacni hadhow waa la guursanayaa horta ku qaldayinta waayo horta inanku wuxuu qaban karayay in inan laga filan qabata maaha because ilaahayba muusimin marka inanka maad aragtay in waxay ahayd lagu qiimeeyo wuxuu inan qaban karo inantana lagu qiimeeyo waxay inan qaban karto aan la isbarbar dhigin deh oo la idhaa inantu markay dhalato inan baa dhalatayoo waxaasi ku wanaagsantay markuu inan dhashana la idhaa inan baa dhasho waxaasi ku wanaagsanyay so each one loo sameeyo dee waxuu ku wanaagsanyay laakiin se aan la odhan inantu dee wixiina kama qaban karto then value ma laha ama qiimo laakiin unfortunately arrintaasi ilaa maanta waa arrin jirta oo reerka waxa weeye ninku marka ugu horeysa waxa weeye uu ilmo marka la weydiiyo lagu dhahdo maxaad inan buu odhanaya run ahaantii badanka waxa weeye adu maxaad dooranayda khaalido anigu shakhsi ahaan horta ilaahay baa le wixii adiga laakiinse ilaahay baa ayaa xukunka leh marka laakiin anigu run ahaantii curadkaygu waxaan jeclaan lahaa inuu inan noqdo hablaha ma diidani laakiinse dee ka u horeeya laakiin ilmahayga ugu horeeya waa inanka mas-uuliyadda ugu weyn qaaday waa curadka dee traditional ahaanna curadka ayaa ma garanaysaa familiga wixii caruree dambe dhasha ee ixtiraamaano ka dambeeyaan marka inankayga ugu horeeya waxaan odhan lahaa inuu maalin hore sheegay ka episode hore sheegay carruurta kala laakiin just muhiimadda waxaa kusoo darna waxa weeyaa dee kala qaybin leeyihin hata berigor saa miyahaynba berigor waxaa qaybsanaya anaga markaas inamadu dagaal ba geli jiri garanaysaa dumarkana hadda waxaa aasi badan laakiin waxaad yaro moodaa in dumarkii value badan leeyihiin sababtoo ah buurkiyo dee lacagtiis yaro qaali noqotay iyo dee rag baa u arkaba hablaha lacag socotaan waxaa ka odhanaya inanka isaga markuu ku dhasho baaskilad baad u iibinaysaa wadadu carre gaadhaa jire magtaad qaadanaysa inanta waxay ku leeyihin guriga ku dhex fadhiisa baaskilada ma iibin karaysa laakiin iminka maad aragtay waxa weeye hablihii way isbedelayaan iminka waxa weeye xilligan iminka aynu taagannahay waxa weeye waa saad sheegto horta dee ragguna waxa weeye waxay leeyihiin wax lagu qiimeeyo dumarku diintu xitaa way kala saartay qof walba in la barbar dhiga dee cidduu la mid yahay oo raggana la idhaahdo dee ninka markuu dhasho wixii raggu qabanayn baa laga sugaya inantana markay dhalato wixii hablu qabanayn laakiin qof walba siisa loo qiimeeyo iminka hablo jaamacadihii ka baxaya maastero qaadanaya shaqo gelaya hooyooyinkood biilinaya biilinaya oo intii dee uu nin qaban jiray qabanaya laakiin hadhow markay noqoto family ee inantaa la guursado inantaasi inta badan dee anigu waxaan arkay lama qabsato guriga waa wild cat soo qabo gurigeena waxaad ka dhigtaa domestic waayo ninkii example siro wanaagsan oo dhigno ayaa lagu xanaaqay axmedow adu waa qof aan la qabsan dabeecadu sameyn jiray oo la doonaya in dabeecadii laga bedelo all of a sudden suurtagal ma hadda ma noqonayso markaa ninkii iyo inantii markay guriga isugu yimaadaan ninkiina wuxuu doonaya inuu baxuu soo shaqeeyo gabadhiina waxay doonaysaa inay baxday soo shaqeyso caruurtiina meel dhexay ku dhacayaan shakhsiyan waxaan odhan lahaa one time inantu ha shaqeyso waa haddii ay ka fursan weydo like every door iska soo xidho albaab kasta iska soo xidho taas de waa necessary waa surviving baa waa qofka doonaya inuu dee noolaada ama nolol sameeyo taas waa mid laakiinse haddii wax walba lagu siinayo oo lagu keenayo oo uu leeyahay ninku anaa shaqaynaya anaa keenaya adigu dee iska joogo adoo guriga I think welibana hablaha waa the best deal waa dealka ku wanaagsanaa qof la siiyo waa adoo fadhiya waxaad doonaysid hel midda kale mid baa jirto dee intaanay caruuri meesha iman waa caadi waad shaqayn kartaan waxa weeye waad labadiinuba dee waad bixi kartaan waad soo shaqayn kartaan laakiin markuu ilmo yimaado ilmuhu hooyadu u baahan yahay yacni waxa weeye aabbahana uu baahan yahay laakiin diinta islaamka waxay ka dhigtay providerska ragga hadde qof walba wuxuu leeyahay shaqo iyo muhiimad iyo maad aragtay wuxuu kusoo baxayo exactly dumarku waxay odhan doonaan xitaa maad garanaysaa yacni waxay odhan doonaan
raggu haddaanay shaqo familigan kafaalad qaadaysa aanay hayn ka waran shaqadaas aan necessary waxyaabahan ku daran waa exceptional waxyaabo ay ka fursan weydo hadii jiraan waa qasab inuu kala hadii la okay nin caajis booyan kan وعادية إنه شخص it's okay because his problem like so قف حاجة كسولي محتري يا قف إنك عارسي سيدو عارسي سيدو كلامه كعكرين نربا إنه شقية معها ها قريان كفالة قاعد كرين يسقوا هذا بقى عروتها لو ريقوتي هاي لا حاسوا سيا خلاص كلام واو حويا والشيار ننا سما يا سيا هالكاس مان شيار سيا هالكاس تصوير عادي رقبة مديدة والله ما مديدة كرا حتى إنك أضو هذا هالكاس ديت هي والله أي الحوار يعني ما رجن قرب شوكت ما gabadh qurbaha joogta ayaa nin hargeysa jooga tusaalahaan oo kale ay isku baranayaan ninkii way qaadaysaa ninkii xaafadu tagayaa ninkii ma shaqeyntu dalka kala baranayaan waqti bay ku qaadanaysaa gabadhii baa shaqeynaysaa caruur baa meeshii imanaysaa ninkii baa lagu oranayaa caruurta hayba xafaayada bedel cuntada kari isaga halkaas dhigi laakiin halka hore waan garanayna wallahi because naturally grandson gabadh ma ka dhawaato valuable grandson yani valuable loo socda ninku wana shaqaysta values waan soo shaqaysta you have to earn it value wana adu sameeyay handa hablo wala dhashan ba ma baahna marka kale waxa kale jira I think waxaan marnay inaan si dheerayn waxay gaadhay waqtigii break ay insha Allah waxaan xasuusin mar labaad iyo mar saddexaad iyo inta barnaamijku socdaba subscribe ta comment ka like ta share ta horta YouTube ka markaad ka soo noqoto YouTube ka horta YouTube kan ku sheegna waa ideal space ideas markaad ka soo noqoto YouTube ka Instagram ka waxa weeyaan ideals/ideas 2021 so kana make sure inaad follow garayso because episode kastan soo xalqad kaste waxaan sameynaa halkaas ka horeeyaanba halkaas ka horeeyaan Instagram ka so make sure hadaad xitaa hayso some new ideas noo soo dir hadani fikradaha cusub iyo hayso haddaad hayso tobagyo cusub ood rabto inaanu ka hadalno commentka noogu soo qora marka waanu ka dhex dooran doonaa tobagyada xalqadda ku xigtaanu ka hadlo so insha Allah waxaanu sarki doonaa break kadib idinkoo soo nastay anagoo soo nasan peace videogan waxaa maalgeliyey Aladdin Shopping waa company caan ah oo ka jira adduunka oo dhan waa international Aladdin Shopping imika waxa laga furay magaalada Hargeysa Aladdin Shopping waxaad ka helaysaa ama kugu diyaar ah alaabo fara badan oo ay ka mid yihiin mobilada khaasatan ahaan iPhone-ada oo ay ka mid yihiin dharka oo ay ka mid yihiin saacadaha wuxuu kaloo Aladdin uu sameeyaa service khaas ah oo ay ka mid yihiin in alaabo internetka ka soo heshad magaalada ka weydii inaad noo soo dirto oo ku soo qiimeyn oo ku keeno haddaba Aladdin Shopping informationkiisa ama halka ku yaala magaalada Hargeysa waxaan kugu soo qori doonaa halkan nambarada iyo contactska nagala soo xidhi karto WhatsApp-ka Instagram-ka shaashada ayaan ku soo qori doonaa dabaha moogaan Aladdin Shopping hore la soo xidhi kusoo dhawaada mar labaad podcast-ka Ideal Ideas intaananu bilaabin make sure inaad follow garayso Instagram page-kayga ideal/ideas 2021 because 2021 baan bilaabnay podcast YouTube-kana waxaad samaysaa make sure inaad subscribe siiso YouTube channel-kayga Ideal Ideas Ingiriis bay ku qorantay odar ma isbeelnaa YouTuberadu maxay raadaan markay subscribe leeyihiin batacas عبدي وصومالي شيكسك وصومالي برتعاس كل دفع عدان كردي شلس كيرنا كل شيء دفع أروق يا رهاوس بحضر أروق حمود الله أكبر كومنت نوع حيكولتها أنت تسكت وتها سكبي حنده فيديو جم حيكولتها نوصل در لايك تنادى يدو الشرع والله وقصب يس سأعطي ألو جس فرنتان شيك فرنتان شيك واحد wixii ku dhiman sheeg wixii doonaysa feel free adu feel free feel free new ayndida dhacda sheekan igu suuqa ahayd moogti waxaan ku arkay Facebook videogan wuxuu ahaa nin curyaan moogti
marka wuxuu watay gaari caasiya curyaan buu gaari caasi wata handicap cripple horta dee handicap nimadiisu waxay siiyeen waa naafada lagu hordhamay naafaka marka ninkan gaariga waxaa looga dhigay custom isagaa loo soo habiyay curyaan ahaan gaariga si gaar ah marka gaariga si gaar ah gacmaha markaa loo gaari caadi ah baska ma hubno in loo soo habeeyey ma xitaa yani handicap nimadiisu ma lug bay ahayd ma labada lugood bay ahayd ma garan karno waayo fiidiyoogu wuxuu ku hayuun uu ka jeeday isaga kuma soo jeeday marka laakiin wuxuu lahaa yani ma curyaan adigu nin traffic ku qabsado ku yiri nin curyaana gaari moodi karo laakiin wuxuu sitay license buu sitay bugi gaarigu sitay yani sharcigiisu u dhamaystirnaa sharcigiisu u dhamaystirnaa way ku qabsadeen waxay ku yidhahdeen nin curyaana gaari ma wadi karo gaarigii halkaasay ka dhigeen isagiina wuxuu wadadu dhinac uga baxo kamarad buu ka duubay moogtay waayo imika xaqdaradoo dhan waxaa la sameeyaa kamarad yarun baa lala soo baxaa kamarad yarun baa lala soo baxaa baastolada u kaxeeyay mobilku imika waa haddii lagu qabto istaagaysa waxa weeyaan runtu sheegay wax kasta runtaada loo soo gal yar baan soo gashanaya halkaasaan gashanaya anigu qofka qori kugu qabtay soo dhufanaya kamarada yar sidee hay dinka sheekan haya waan ilaalinaya may tan la yaabin anigu imka traffic ka xanaqsi ka magaciisa ku qabsaday traffic anigu waxay la tahay horta niyo waxaan hubinaa la iska maraa moogtay gaarigan haddii uu custom u ahaa ninka iska leh oo isaga dee curyaan ahaan loogu talagalo gacmaha loo soo dhigay break iyo lawarka dee xaq laakiinse haddii uu curyaan ahaan labada lugood oo gaariguna gaariga caadiga qofka caadiga wadaya ay tahay dee horta traffic inuu halkaa kaga dhici laakiinse haddii ninkan licence lasoo siiyey dadkii licenka sameynayay dee waa soo eegeen soo tijaabiyeen horta curyaannimadiisu inay labada lugood ahayd ma garan war xitaa haddii ay ahayd licenka dadkii soo siinayay waxay usoo siiyeen dee waa ninkan wadi karaa gaari dee ninka trafficka halkii ka sareysay ayaa soo deysay ninka oo sharcigiisa soo siisay marka inuu ninka wuxuu isku ninka askariga wuxuu ku lahaa trafficka wuxuu ku lahaa waxaad igu haysato waa maxay ma sharci baa hadduu sharci yahay oo qaamuuska buugga sharciga ee dastuurka somalilan uu ku jiro in aan curyaan aanu gaari wadi karayn ii sheeg gaariga halkaasaan kaga tegayay furaha waan ku siinayaa laakiin haddaanu ku jirin ha ii sheego ninku wuxuu ila dagaalamayay ee uu jir dilayay oo xitaa wuu jijiiday buu lahaa moogta fiidiyooga dhexdiisa xitaa uu soo jidaya gacantu dubi kamarada ninkii falku ku dhacay ninkii dhibaatada soo gaadhay ayaa duubay farid wallahi so askari wuxuu sameynayay uu yimi moogtay so intuu ku dhaw haryaa iga dhil garee ayuu arkay inaanu dee ninkan ka haysto moogtay ayuu yidhi inaad arday walaal hadda iga dhil garee intuu ku waad garanaysaa haryaa waad iga saariyo wallahi waad iga saariyo iga saar wallahi inaan kaa saarayne soo dhigaya Facebook meel walba xaqdarada adigu wadan duubay ayuu yiri markaasuu yiri hadaba in adeer iga saar hadana masuul kama deynay hadana ku ceshta ajiradiisa waa naga teebo waa naga deynay labadiiba ku eeg qowgiina ku eeg kulalkiina ku eeg labadiiba shaqay waay farid wallahi mika maradaasi wax noqotay in ka wax hadii wax la yaabo oo duubsa wal ugu dagaalay hay laakiin dadku si qaldan buu isticmaalaan qaar baa qof dhimanaya ka duubayaan iyo shilalka ka dhacay shilalka safarada dadkii wax oo safarka xaga shaka ka dhacay yaan xirso xaalay ka galay qofkan halkad kaga carleed ka caawin lahayd nine u qaraac dad video ka duubto xatartay first ma galay dadku TV-da laga iibiyaa anigi fahmay anigu maxaa ka iibina first aid ka wanaagsan iyagu tan kama laha yani video-gan waxa laga iibinayaa channel baa laga iibinayaa home cable-ka waxa laga iibinayaa channeladaas laga iibinayaa mid kamid moogta marka iyagu lacagta eegayaan de hay hasigu ma hogeeyay marka de qofkii ma caawinayo xitaa hadad ninka aad caawiso waxa male oo gaariga ka soo saarto oo meel dhigto oo de waxaad u qabato marka ka duubto laakiin qofkii oo kala dhacsan ayaad wuxuu aad ka duubaysaa xitaa gacan ma siinaysid kamarada saa soo qabanaysaa waad ka duubaysaa maxaad u qabatay ninkii maxaad u tartay bilay naftu kaaga hor baxdaaba isagoo yani hortiisa yani adoo isagoo ka hor jiifa يعني انت ادوبيسو hadad caawin kar leed waxa laga yaabaa inaanu ninkaasi inuu la badbaadin kar lahaa dambabuu dhintaan laakiin waxa laga yaabaa inta aad kamarada aad duubayso laakiin mid baan garanaya anigu mid baan maqlay waa arin jirta yani qofka shil ku dhaca amba dee dhibaato soo gaadho Soomaalidu waxa way dhaqankooda waxa waa faraha lama galaan waayo waxa oranayaan khaladka anaga la saaraya waxa la oranayaa adaa ninka dilay waana runtii sometimes wayna jirtaa khaladka qofka waa la saaraa waxa lagu dhaadaa qofan garanay baa saa lagu xiray
yaa qof family kamid ah ayaa saa lagu xidhay isagoo caawinaya bad buu galay ma igu caawinayba sabul adiga waxaan ku geystay Hagu waxaa geeyey. la magaciisi the cycle of crime ka laga garanaysaa marka cycle ka hadad magaciisi soo gashid khalas dambi balad aad ku jirta adiga Ah. maxaa soo geliyay ah maxaa faaraa ku geliyay maxaad qabanaysaa shaqada halkaa ku maxaa joojiyey ku joojiyay su'aal ma weydiinaya marka su'aalaanta lagu weydiinayo de marka ma lagu geeyo saldhiga ya interrogation baa kugu sameynaya ah ilaa ay runta ka sabacdo laakiin waxaan u Ah, malaynayaa bas- hadhow way adkaataa in lasoo helo qofka khaladka galay markaa waxay saaraan qofka soo qaaday hadduu caawiyey hadduu ah qofkaasubay khaladka saaran bala horta taasi de eeg waa waxa weeyaan unprofessional weyn waa qof caawinayo isagii la saaro qaladka maxay la tahay idinka hadda adduunka san kama jirto hadda qof halkaa ku dhimanaya aad soo qaado dhakhtarka geyso horta run ahaantii waa lagu kaxeynaya saldhigaa lagu geenaya waa lagu kale waad wareysanaya. maraysaa ha waad maraysaa taasi waa sharciga laakiin waad lagu cadaynaya waa la garanaya inaad qofkii waayo nin dilay intuu soo qaado dee dhakhtarka ma keeno midda kale de interrogationka waad maraysaa madar su-aalaha iyo waxaa lagu su-aalaha weydiinaya. waad waa So khasab halkaasa lagu cadayn karaa ah daanad waxbadin waska soo haddaad baxaysaa waxba din de waa iska soo baxaysaa bilahada daanad lug ku lahayn de waxa Ah. clean true haddii kale de waxa weeye meeshaad dad wax ku jirtayna de intaasun baa kugu cadda intaasaaba kusoo qabanaysa ma dee hadad wax wanaagsan sameysay wixii kale baa laba kala garanay de ya Mm. askarta waxa ma eegaan Ma- waa unprofessional waa macnaha waa qofka wixii u diyaarsanayn baadhistii eeg iskumadu jiraan moogta laakiinse waa inaad shaqadaada dee imika kale qof caawinaya waa caadi laakiinse waa inaad kala garan kartaa hadhow de yaa caawinay yaa meesha ku jiray siduu qof waxaan u dhac waa inaad heli kartaa de qaab bay leedahay waxaan u malaynayaa tixraac baanaysa ninkii aad sheegaysa familigiina ka mid ahaa aakhirkii de ma iska soo wada caddaatay inaanu ku jirin waa soo cadaatay De- wax la soo day laakiin imsa la garanaysa ah 23 days saddexdaa tahay waa sida oo de la baadhayso maaha wala baari wada baari adduunka waxaa la sameeyaa qofka hada waxay diltaan bay qofka lama xidho interrogation intuu socda adduunka caadi ahaan Hadda hatta lama qofka xidho inuu dilku ku cad yahay waa la siidaa kalba waa loo yeedhaa Allah ya ha sidee oo fahamsiya hatta hade halkan laakiin qofkii 20 iska xidha ma interrogation war waxaan ku ilaa hatta kajarki ninkii qofkii meedkii laana xiristay waa la soo xiray waas waxay dilbeed ya horta inaga waan baxsan adduunka ma baxsan karaan moogta ma baxsa waa la qabanaya anigu waan baxsan karnaa laakiin dilbeed Sababtoo waa la soo soo qabtay ininga hatta ninkii dhintay waxaa la soo qabtay jaarkoy waxaa la soo qabtay dadkii iskariin qofka isagu wuxuu sameeyey wuxuu maxaa dhawaaqay isaga loo waa xiray la muxuu siduu caawiyey sidee loo qabtay wuxuu caawiyey ininka meedkii intuu ka soo qaaday magaciisii dariiqa ayuu telefoonkiisii isaga meydka qaaday isagii oday kale ay meedka ka qaad wadada halkee ahayd wadada halkee waxay gadgoble xafadaadii markaasaa kadibna lambarkiisa isagii ka oday garaaca dadkii waxay islaayeen gabadhe inta nafta ka baxaysay waxay islaayeen gabadhe joojiya gabadhada dhagaxaan baa lagu saajiyaa dhagaxaan bay ku saajiyeen qof ma jirto intaas magaciisa meydka nafta way ka baxayseen garanaysa midida meel xun baa laga dilay marka dhabarka imse jeer 10 times Allah markii tobnaad waa lagu jiiday ya marka waxaan ku leeyahay al wala dhacana suxum taan waxay mobile ma yahan bariga dhaxay bariga mobile la iska qaaday jeer garanaysa ah mobile ma yahan maalin baa may waxay ahayd habeen baa ahayd ah argos baa ah sheekadana waa argos baa shakada على كل حال adigu caawinay adiga moolkiisa inuu ka soo qaaday wuxuu la hadlay familigiisa wuxuu ku xaga ku kaalaya adeerkii baa u yeedhay baan way askartii ma hesha ninkii dilay ilaahay baa Ma la helay ninkii dilay waa waxay sameeyeen wuxuu sameeyey mididii intuu la cararay ay ka gashay magaciisii lugta bagdan dhigtay ninkii hay kii dad xadiray kii midida haystay ibna naxtintii waana ciyaal baa waxay 15 16 baa garas wax dilay laba dilay waxay hayeen ma open eye toban baa marka gacantooda saaran mise marba mid arka qaano qabtay midna ka tagay midida ah Garanaysa. ku jiraan كله جام of course mididu iskaliye isku loo orday foosteen jiray naxdintii Allah ay kadib midid iskali midid isku saaray baash haduu ku kasho war ugu dayay garanaysa dhiig ba fataytay dhiigna garasa wax baba ma hada ya ilaahay waxa ku tookalay adigu de wuxuu sameeyay leen dheer buu sameeyay ilaa farmasi joogay Allah laankii baa la soo raacay leenka la soo raacay dhiig la soo raacay waxa arko ninkii de waxa ku xirantay baashi bandage ya oo ku xiran ama la arko qaalay warqad sheeg baa lagu sheeg farmasiyada iyo dhakhaatiirtu ma daweeyaan qofka nawr weyn wuxuu ahaa family ha qarbaaj farmasiyo la garanayay garasheed aduu habeenka xagaas ilaahay baa naguma keenay waxa loo soo kacay waliid ka taraale lixdii te kugu dhacay midad garas oo tegaysa saaxiibtiin hayo waxa la soo qabtay
dhacdo anigu dhacdo ninkana farmasiigi wallahi midoo garanaya farmasi aanu saaxiib ahayn ayaanu geeyo okay marka kolley wuu iska gartay inuu ku daynay ma garanaysaa laakiin se dagaal baa hada kale dagaal baheed adigu waa la soo khalas wallahi xidhi lahaa soo subaxdii soo subaxdii waa la soo qabtay caadi ma laha isagaaba askariga garaaci lahaa axmedkana yow magacaa ka jar meesha kaya may magac baan Anigoo la garanay. sheegay inanka magaciisaan sheegay sagaal axmed baa farmasiyaasta lama garan armay waa laga jar way Armaga- garan soo hay. saaraya adee hay hay It's okay. So, qaar baa ku daba gelay qaar baa odhanaya arkaalay ninkaas wuu sii daayaa dadka dhaawacan oo dhane uu daweeyay kusoo xisaabtamaya may waa si wanaagsan marka adigu saas ilaahay baa waxaan ku toogalay heerkan marka dambiga galay markii baa la soo qabtay carruurta yar 16 15 baa wax lagu xumakay ilaa adigu waxa soo inta lagu xumakay walaa salaamo badan lagu Allah la xukumay iska daa xumakay laakiin waa saxda yani misal lagu xukumay والله salaamo badan I don't remember ma xasuusto wallahi toban may dhaafin toban waxa ma ahay intii lagu xukumay wala la sugaa ma Waa la dadkaas sugaa. kale waxa la sameeyaa waxa jeelka lagu hayaa ilaa intii qangaadheen waa ma ya system USA ah asaas ma ilaa minor mu ku yahay ah 18 mu ku dhaafna khalas wax laga haddii dil loogu xukumay haddii kiis lagu sameeyay maalinta waxa la sugay intuu qangaadhay saas wanaagsan bad may de atu wax dambi sameysan waa marka lagu seelay yala ah dambi lagu xumo waxay marka qof muslim dish ya qof walaalka ya marka kulli xal waxay noqotay aan ku soo noqon mawduuca duubitaanka waxaan tabanay maanta waxaan ka dawnay facebooka tuugan berberajooga ka gaari buu ka shabsani kamarada lagu duubay uu sugayo garansa markuu sidaa u galay gaarigii ayuu ninka ka soo ninku gaari ku jiray gaari u saag taagan laba gaari markaasuna dayna kuuska nafisay xaga iska jiray gaari kale gaari kale ku dhif kamarada soo qaaday soo kor far marka wuxuu mooday qofka iska lahaa wuxuu ka dhex duubay gaarigiisa gaariga ha beersan buu ku xidhaa ah uu soo daadigo markuu saa kala deeri alla gaariga gashay yaa imika maari doonta ay buurun hore maxaa ka shaqaynaysaa ya ma gaarigini ba ya ma gaarigini ba ku adawaa yade tuugnacaas kaan hay hawa gaarigini wallahi buu kule ya adu maxaa tahay buu kule soo dan kule kaan ka kasar ana kaan ka saaraya kaali aan tagan magaciisa tarafiga ah hay ma gaarigini buu ku washay ilaa maanta dhar adu kule waxa ha 1 minute buu ha khalas waa tabta nin tuugoo dee xaafad u dhacayo la sugay oo la arkay intuu soo dhacayo qolalka loo kala galay waka markuu sidaa daaradoo soo cagdhigtay un lagu soo wuri waxa uu yiraahdo xaafidinida haduu guriga waa kasoo khaldamo gurigaydiiba riya dalka joogta wallahi marka aduu waxaas dadka martu waxa weeyaan waa bas weban wallahi ma baasolada imikeeda ka dhaamta runtii laba tifo baan u qaadan lahaa kaygan caadiga ayay ku kamarada fiidiyaduna tu oo fiidiyadun ku duubtay kamarad macaan la anaa saasi u dhacday nin askari oo khalad ku socdaan intaan mar xitaa kamarad kama duubay isagaa isku kay soo jeediyey kool baa kugu soo dhacay kool baa igu soo dhacay mobilka saasan u hayay moogti miis baan saa ugu hayay saasan u eegay soo kula hadlaya may ilmu hadleen halkaasoo kale u taagnaa marka muxuu sameeyay marka waxay ahayd xafiis aan ka shaqayn jiray ahayd marka qoladii muxuu ahaa askarina wata nin askari la socdo intay dhigta kasoo dee magaranaysa intay wax kasoo buuxiyeen hor cararayo markii koowaad intaanu la hadalnay magaranaysa ayuu noqday ninkii bay dhagaha kasoo cuneen maxaanu kaa soo kaxaysanay maxaanu lacagta kaa siinay kiiyoo dhag la qabta aan lahayn baa meesha soo galay mogta kii baan markaana dee iska yarwaabiyey askarigii ahaa markaa intuu arkay inuu khalad ku jiru baxay ayaa haddana isagoo dibadda ay kusoo canaanayaan waan arkayaa moogta ayuu soo noqday markaa mobilka waxaan garaacayaa markaa inaan manager ka ahaa xafiiska oo kulay waana inankii u socdeen moogtaaleyo dee waxaan weydiiyey waxay leeyihin aan lay marka askarigii baa arkay mobilkiiyo sidaa u taaganoo wuxuu mooday inaan wax ka duubay markaasuu yidhi maalaad iga duubaysaa markaasa haddaad doonto iga duub waxaad doonto samee kamaradu mayna waxay ka dhamaysaa moodaysaa ma wax xun baa sameeyey ma kula hadlay isku dhex yaacay ninkii gebigiisa buu isku dhex yaacay markaasaan anna markaan arkay inuu kamarad soo hadal qaaday unbaan mobilkii kor u taago saas baan ugu qabtay kamarad waxa ma shidnaato xitaa isoo ag istaago waxbay contactkii baan ku jiraa moogta markaasaa intuu sidaa u dhaqaaqay raggii dhex tegay uu dhexda saa u qabsaday uu kaasee dee la hadla kamarad buu iga duubayaabee yaa arkay inuu qaldan yahay wuxuu qaladkaagii baa la duubay haa iminkaad facebook caan ka noqon doontaa buu sheegay askartana aad uga baqan marka maalintaasaan ogaaday in
mobilku leeyahay Power dee leeyahay. makaraysaa power power iminka these days way ka wada baqdaan maad aragtay qof walba You know what I'm gonna do it والله you know why بس أبغى سقف you know فايز maxaa uga وزوال. baqanayaan حاسس والله أنا كون قبل هي حتى waxaa uga baqanaad garas qofka markus ogin inuu qalday uu ka baqanayaa ka baqanaya so qaladkii baa loo helay caddayn عدين dee ninka traffic buu ku caddaa khaladku so kan marna bariyay marna uu bari shaxda ninka marna beddelay. eventually ولا sorry eventually ولا sorry so waxaan helnay baa imika markii ولا sorry qof walba space banaysa moolkaaga aad ugu tala gasho in in case yaroo just in case haddii kugu dhacaan meelaha suuqa dhexdiisa. khalad lagugu qabsado saad u dubato haddaad bilaa sharci tood iminka khalad aad ku socoto oo siraado ka duub dee waxaa kugu yimaada saaxiibaad waad leedahay khaladkeeda laakiin haddaad saxsan tood sharcigaaga uu dhammaystiran iyo tusaale ahaan oo kale aluushii wax lagu weydiiyo soo duubo soo duubo caadi u duubo kamarada kamarada hagaajso kamarada xagga hore soo dhig iPhone baan u oranay iPhone ka day si 4K oo noqoto washo Canon 4K bala garanaysa si 4K iPhone-ada ugu macaan kamaradooda waxaad iPhone-ada ka helaysaa company la yidhahdo Calaa'idiin Calaa'idiin mobilada doonayso from iPhone 6 up to iPhone 12 marka Jabiin waliba waa kuwa magaalada ugu maartay xay ku tala India ku tala may saaxib xay ku waa tala international adduunka oo dhan bay la shaqeysaa laakiin se office halkan ay mid ku yaala office madu ku yaala wala Calaa'idiin bala Calaa'idiin baa base ugu weyn wuxuu ku yaala Hargeysa China base baa ku yaala Muqdisho base baa laga furayaa marka waxa weeye wixii mobiladu baantiin dhar wixii kale Calaa'idiin just in case waxa weeye ata Instagram iyo Facebook meelaha la soo dhigi doonaa ilaa kusoo tuurna laakiin maanta waxba nilooni cargarta maxay nilooni habeen nilooni maanta producer shout out to yes Allah shout out to our producer Isman maanta laba producer baa halkaa fadhiya Ozili the producer Guardian-kayga waa Frank Castle-kayga halkaas fadhiya yeah security guard plus excessive producer plus the list goes on man manager so labadooda halkan aan soo dhigay shout out guuled shout out to my nigga from Manchester yeah let's travel inshallah maanta xaga ku joojino inshallah I think yeah it's almost time it's about time yeah and send us a subscribe inshallah waan soo wadnaa and surprise me inshallah next week comment yeah like we're not gonna reveal like inshallah surprise and comment and share yeah on the broadcast fafia عدي isla hay wajaalaan broadcast kana day waxyaabo aan ka hadlaa jeclaadaan garanaysa oo sheega mar kale aan ku celiyo waxa weeye wixii topic-ii aad haysaan aad rabto inaanu ka hadalno xalqadan ku xigta commentida noogu soo qora waxa weeye waanu ka dhex doori doonaa commentida xalqadan ku xigta ayaanu ku soo diri doonaa haddii ay jiraan dad daawado page-kayga oo aan subscribe gareyn oo ilowsanba haddaad halkan soo gaadhaba imika oo dhegeysanaysid subscribe imika la galo ku dhufo ku marsantay like iyo comment-ka iyo Instagram-ka page-ka dadka waanu ku soo dhaweynaa anagoo cid ba meerino soo dhawaada marka so see you next week inshallah see you next iyo week surprise car inshallah yeah surprise kana waa nii soo wadnaa la socda yes sir bye Bye. peace